shalay waxaa xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho kulan ku wada yeeshay mudanayaasha baarlamaanka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ah iyo ra'iisul wasaarihii dhawaantan uu magacaabay, iyadoona ujeedka kulankan uu ahaa ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub iyo weliba sidii loogu ogolaan lahaa inuu soo yeegleelo xukuumad si uu sii ambaqaado hawshiisa. Madaxweynaha ayaa baarlamaanka hortiisa ka jeediyay khudbad muddo dheer socotay oo isla markaana qodobadii ugu muhiimsanaa ee uga hadlayay ay ka mid ahayd ujeedka uu Maxamed Cabdullaahi Maxamuud Farmaajo ugu soo xushay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waxa uu aaminsan yahay inuu dhalin karo ee isbedel ah. sidaas darteed ayaan ku soo magacaabay. codsigaaguna wuxuu yahay in aad ogolaatiin golihii wasiirada oo soo dhiso barnaamijkiisa oo la yimaado. codsigaan waa kaas waxaan rajaynayaa insha Allah tabaaraka wa tacaala inaad ogolaa doontiin. xaaladda dalka oo ku jiro markii laga soo fiiriyo 20 sano la soo dhaafay ugumana fiicna hadda marxaladda aan joogno, laakiin waa marxalad sida annagu aan u dhigno insha Allah wanaag aan u dhigi doonaa ku xiran. waxaa la socotiin maanta waxaa noo dhisan dawlad ilaah ku mahadle. caqabad fara badan ka hor yimid welina waa hor yaalin. waxaana soo maray khilaafyo kala duwan oo aan ka soo gudubnay. ilaah ku mahadsan gacantii aad ka geysateen oo ku mahadsantiin. waxaan rabnaa inaan ka gudubno oo aan u gudubno waxqabad. waxaa lagu heshiin karaa waa waxqabad. ra'iisul wasaaruhu hadduu nin wanaagsan noqdo oo wax qabo waayo nama anfacayo. waxaan rabnaa nin wanaagsan inuu noqdo waxna qabto. waxaan ka rabnaa amnigiina wax ka qabto. waxaan rabnaa inuu wax ka qabto arrimaha u yaala dawladda oo ay ka mid yihiin dastuurkii, ay ka mid yihiin hirgelinta federaalka. sidoo kale waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay ra'iisul wasaaraha ansixintiisa loo fadhiyay ee Maxamed Cabdullaahi Maxamuud Farmaajo. ra'iisul wasaaraha waxa uu isdhinac dhig ku sameeyay dhibaatada ka jirta dalka Soomaaliya iyo amni xumada heerka ay gaarsiisan tahay iyo nabadda iyo barwaaqada ka jirta dhulkii uu ka yimid ee Mareykanka oo ay dawlad ka jirto ama ha ahaato Yurub ama ha ahaato Afrikada kale ama ha ahaato North America. hooyada Soomaaliyeed markay ilmaheeda u dirto dugsi ama school waa ka seexataa. waxay og tahay ilmahaas inay u soo noqon doonaan iyagoo nabad qaba. laakiin hooyada degan magaaladan oo caasimadeena ah oo dawladeenu xarun u ah, hooyadaas nasiibdarrada haysa waxay tahay markay carruurteeda dugsi u dirto wadnahay farta ku haysa. marka hooyadaas waxay u baahan tahay nabad. waxaan weydiinayaa marka mudan yahay mar walba diyaar u tihiin inaad ka qayb gashaan nabaddaas? diyaar u tihiin? si fiican ma maqlin hal ahaad waa wada cabshahay. diyaar u tihiin? sharaf. sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay ra'iisul wasaaraha in wax badan uu ka qaban doono arrimaha xuquuqda aadanaha isla markaana uu door weyn ka ciyaari doono daryeelka shacabka barakacay. intaasi kadib kulanka waxaa hareeyay fawdo, buuq iyo weliba zaxmad aad u daran. waxaana la arkayay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka oo faraha isku taagtaagaya isla markaana caro isu muujinaya. gudoomiyaha baarlamaanka qudhiisa ayaa laga dheehan kara wejigiisa dareen ku aadan in uu dhaliishan yahay qaabka ay wax u socdaan. waxaana gudoomiyaha uu isha ku hayay qayb ka tirsan baarlamaanka oo iyagu fadhiyay gudaha xarunta golaha shacabka isagoona wax baaq u muuqda mararka qaarkood u muujinayay. mar qura ayaa waxaa isqabsaday zaxmad, buuq iyo fawdo guud ahaan howlkii shirarka ee golaha shacabka. tiyo saxaafadda ee goobjoog tahay kaamarooyinkana ay ku fooraraan waxqabadka
iyo weliba qaabka dhaqdhaqaaqa baarlamaanka sida uu yahay. bal daawade qiimee xaaladda mudanayaasha baarlamaanka ee saxmadooda iyo buuqooda iminkaba indhahaagu ay hayaan iyo weliba dhibaatada dalka ka jirta inta ay la eg tahay oo aan aragno maalin walba shacabkii inay dhimasho, dhaawac, haraad, barakac iyo weliba dhibaatooyin kale la kulmayaan. ma isleedahay mudanayaasha baarlamaanka ee ceenkan oo kale ah in ay dalka sama bixin karaan isla markaahina xaaladda dalka wax ka bedeli karaan? maxaa talo ah oo aad adigu ka daawada ahaan soo jeedin lahayd haddii xaaladda Soomaaliya wax laga weydiin kari lahaa xilliga kan ee cakiran? ma ahan kolkii ugu horeysay ee baarlamaanka Soomaaliya ay isku maandhaafaan arrin la xiriirta arrimaha wax ansixin ama weliba mooshinada. tan iyo waagii la unkayna waxay ahayd doodooda mid soo taxan. taariikhda waxaa galay oo la wada xusuusan yahay kulamo ay yeesheen baarlamaanka oo ay kuraas isla dhaceen. iminka waxaaba sii muuqanaysa in tiradu ay tii ka badan tahay, isla markaahina ayba macquul tahay xilliyada qaarkood in ay gacmaha isula tagaan haddii ayba si kale isu dhibaateen. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa markii buuqa iyo saxmadda ay badatay waxa uu ka dhawaajiyay in kulanka baarlamaanka la isugu soo laaban doono Sabtida ina soo aadan. waxaana taasi ay ka dambeysay markii 145 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee kulanka joogay ay dalbadeen in codka kalsoonida loogu qaado ra'iisul wasaaraha si fartaaga, halka 43 kalena ay dalbadeen in loogu qaado qaab qarsoodi ah. waxaana gudoomiyaha uu ayiday codka xildhibaanadii ku doodayay in codka kalsoonida loogu qaado ra'iisul wasaaraha cod qarsoodi ah, kuwaasoo tiradoodu ay aad u yareed. isku soo wada xooriyo waxaa laga wardhowrayaa kulanka Sabtida soo socota ay yeelanayaan mudanayaasha baarlamaanka iyo weliba waxa uu dooriyo kulankii maanta.